madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya ayaa isagoo ku hadlayay magaciisa iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu taasi u diray eheladii qaraabadii iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday dadkii ku fatahay degmada Dila oo ka tirsan gobolka Awdal kaasoo madaxweynaha Soomaaliland ka tacsiideeyay eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkaasi sidaasina waxa warbaahinta u sheegay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamaah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo isagoo ku hadlayay magaciisa kan dawladda iyo kan shacabka Soomaaliland wuxuu tacsiid Silaanyo u dirayaa qoysaska ehelada qaraabada iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka baxeen dadka masiibada daadadku ku dileen degmada Dila ee gobolka Awdal sidoo kale wuxuu madaxweynuhu dhambaal ugu damqanayo u dirayaa qoysaska ehelada iyo qaraabada dadkii ay jeclaayeen ku waayay ee ilaamka lagu laayahay ee ay sababeen daadadkaasi ka dhacay ee ay sababeen roobka mihigaanka ee ka dhacay degmada Dila ee gobolkaasi Awdal madaxweynuhu wuxuu amray mas'uuliyiinta qaranka hay'adaha ku shaqada leh ciidamada qalabka sida inay ka qayb galaan gurmadka baadigoobka dadka la laayahay iyo sabata bixinta iyo wax u qabashada dadka ku dhibaataysan ama dhibaatada ka soo gaadhay masiibada daadadka madaxweynuhu wuxuu Ilaahay uga bariyay inta ku dhimatay daadadkaasi inuu Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo kuwa la laayahayna Ilaahay idinkii si dhaqso ah loo helo iyagoo bad qaba mudane Axmed Maxamed Silaanyo wuxuu yiri masiibada dadka haleesha iyo wanaagaba iyo wanaag ay helaan labadaba waa kuwa xagga Allah ka qoran waa kuwa xagga Allah ka qoran suu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay quraankiisa Ilaahayna waxa ka baryaa ayuu yiri madaxweynuhu inuu samriyo iimaan saadiqa inaga siiyo badal khayr qabanaynu ka helo halkoodina ay noo soo galaan badal khayr qaba dhinaca kale madaxweynuhu wuxuu amray in la baajiyo shirkii toddobaadlaha ee maalin kasta oo khamiis la qaban jiray maanta oo kale ee golaha wasiirada isla markaana la isu qaybiyo mas'uuliyiinta qaranku ay isu qaybiyaan labada dhinac ee kala ah ka qaybgalka janaasada Dr. Cabdi Awdahar Cali Allah u naxariiste Ilaahay naxariistiisa oo ay u baxeen wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici kana mid yahay oo weheliyo wasiirka madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kale halka dhinaca muxuu ahaa Dilana iyo gurmadka daadadka iyo masiibada dabiicigana ay u baxeen wafdi ballaaran oo isugu jira hoggaanka xisbiga kulmiye iyo wasiirada ka mid yahay wasiirka diinta iyo awqaafta oo iyaguna u boqolay dhinaca Dila